إمام الأنبياء نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام والنبي القرآن كإلهي وكشيغو يري ومن الليل فتهجت به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وحلو بلن قاد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام مقام المحمود ما شاء قدر جدس الرئيس الجنة إن إلهي إساق أدياريي وكي نبي لها آذانك مركات مغليسان فقولوا مثل ما يقول المؤذن ككدب هذا النبي لأريد أوليه ثم صلوا علي آذانك مركو دما يا مؤذن كنا يقول صلي أبو النبي عليه الصلاة والسلام لأن مركا إلهي وصيلة ويدية من سأل لي الوصيلة حلت له شفاعة نكا وصيلة إلهي ويدية شفاعة إذا أيا حلالو بيسا وصيلة أيا نبي معنا يو حيري ومنزلة في الجنة ومنزلة جنة دحديدة كتالا لا تنبغي إلا لعبد من عباده وأرجو أن أكون هو أبو النبي عليه الصلاة والسلام ومنزلة أقص الرئيس جنة لقلوا يانت أقود درجة الرئيس أدومها إلهي كمدا بقلي دونا وحان الرجينا يا أبو النبي لنا نهانقو أدون كاس نبي قاس مقام كيس إلهي القرآن كأوكو شيغي إساقنا ما ركتاني أحاديث صحيحة إنه قعد منزلة إله كيس وكل يهي أيا دعاء ديس أقبضا وكد عيسى أي نقطي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك مركع خوفا وطمعا إنهم كانوا يصارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين بإلهي آل زكريا ري زكريا عليه السلام إلهي مركو أماني وحكو أماني إني أهايانك وخيرك أدقدقا عبادة أدقدقيان صلاة أدقدقيان وناق السميستي سأدقدقيان إلهي الرالي قلنتي سأدقدقيان ويدعوننا رغبا ورهبا مركينا عابديان إن بريانا وحين نقول بريان بإلهي جعيل نقول بريان عبسي نقول عابديان إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين بإلهي كوا أنك نخش عسن بيهايان بإلهي dadka ilaahay uu amaanay ee quraanka lagu cadeeyay amaantooda sifaadka lagu amaanay waxa kamida taacada u degdegayeen ilaahay taacadiisa u degdegayeen ilaahayna waxay ku caabudayeen labadan sifay ku caabudayeen cabsi iyo rajo goorma muuminka laga rabaa cabsida goorma rajada laga rabaa cabsida qofka muuminka waxa laga rabaa waa intuu caafimaad qabo weeyaan intaad nooshahay caafimaadka ilaahay ku siiyey ee nabadgelyada aad haysatid ee naftu ay kugu jirto markana laga rabaa inaad cabsi ilaahay ku caabudo rajadana goorma la rabaa inay badato rajadu waxa la rabaa inay qaalib noqoto waa marka sakaraadku ku qabtay ajashu ay kugu soo xaadirto markaas la doonayo qofka muuminka inuu yiraahdo ilaaha aanu tagay waa ilaah kariima waa ilaah raxiima aanu tagaya rabbigay wanaagina kala kulmoyana waxun kala kulmi maayo waa inuu qofka muuminku markaa yiraahdo laakiin inta caafimaadka haysid ilaahaadka ilaahay ku dhameystiray ee noloshana aad haysatay talaabsanaysid hadaad noqoto rajo ku nool dad macsiyo hadana isagii oo qofka ku jira haduu ilaahay naxariis rajeey ka warama ma soconayso adoo ilaahay caabudaya oo sadaqada bixinaya oo soomaya walladina yuutuna ma ataw wa qulubuhum wajlah annahum ila rabbihim raaji'un ulaa'ika yusari'una fil khayrat wa hum laha sabiquna ba ilaahay dadkii wanaagsana waxa ilaahay ku amaanay way soomayaan salaaday la imanayaan zakaday bixinayaan waxaan ku arsaaqnay bay dhiibayaan xubnahoogay nagu adeecayaan ba ilaahay yiri iyagoo hadana qulubtoodu ay cabsoonayso oo isleh talow acmaashaasi bilo ilaahay kama aqbalinba iyagoo cibaadaysanaya ay hadana cabsoonayaan iyagoo taqwadii leh hadana ilaahay ka baqayaan iyagoo safka hore ku jira ilaahay ka baqayaan iyagoo laylan wa nahaaran ilaahay taacadiisa ku dadaalaya ay hadana cabsoonayaan rajadu goorma la rabaa qofka muuminka inay u timaado waa marka la qabta la rabaa inuu yiraahdo
ربي وكريم. ابن مسعود رضي الله عنه سكرات مركو أورذي عثمان بن عفان بصوب بوغدي مركاسو ويديو كويري عبد الله يو محاد أبا هانتا هاي بليشك بوكيد هل كيكو قدرا ماذا تشتكي محاد كأشكتونيسا ما أنت بليشك وهل كيكو قدرا وحول ماشي يقدرا عثمان ومكو شيقا ذنوب تيدا يقدرا بولي ذنوب تيدا ابن مسعود مركابو كودي فماذا تشتهي هذا محاد جعشها بلنو شيك إلا قفكم مركو حنونسان يهلا بدنا لو ويديا موقته ورني وهل كيكو قدرا والله قاها iyo nafsadaadu maxay doonaysaa naftaadu maxay doonaysaa inaga maanta qofkii la halkee kuugu daran halkuu sheegi lahaa war halkee sheegi lahaa halka ugu daran in laga hayo farta ku qaban halka baa la iga haya ka kalena wuxuu leeyahay dhakhtar baan kugu yeedhiya sug ma dhakhtar baan naf ku soo celinay ibn mas'uud wuxuu yiri markii Uthmaan uu ku yiri halkee kuugu daran وعود الذنوب تيدي بيقول درن بودي مانت وضع في مركع عثمان وحولي هذا ما حد جعشه بليش شيء نفط هذا ما حد دون يساع مركع بودي رحمة ربي نحديث الرب جايب دون يا بودي مانت يا دون يا نحديث الرب جاي طمع وحال دون يا طمع إنه بلا مركع حتى قفكم مركع وحنوسن يهل الدل تجو وحصلنا إن ليد هذا لا بأس طهور لا بأس عليك دباتكم صارنا ها عبسن هو الولن حنون كان مياه والله قوم ميريا دم بدافات كهليسا إلهي بعد قد دوانيسا درجات كاغا كور لو قو قاديا واتك كعيسا سلامة إن شاء الله دبات أركي ميسي ويقف كالليد هذا لأن مركا قفك مركا ودمن أيانا ودشي سوحا لقول لقنا توحيدك لا إله إلا الله لا إله إلا الله ده لما يدادو ده تدادي ولا إله إلا الله ده تدادي واحد لقى يا شيطان كونوا سكة الأوتو سوق يدادو وما قال بانه مسلم بانه وعروا وقفوا كل انتبه أدونك سوقوا عرونا لكن لقنوا موتاكم لا إله إلا الله كيني نقدمنا يبو نبي يري وحاد أقول لقنتان لا إله إلا الله مقاشية ويان isaga dushiisa ku dhahada kelmadaas soo markaa kaaga soo dabaceliyay isaguna kelmadaas haduu kelmada qofku markay ka baxaysa naftiisu ay noqoto kelmadaas waa kii nabigu lahaa jannu galay man maata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa allah dakhala aljanna wa fi riwayatin man kana akhiru kalamihi la ilaha illa allah dakhala aljanna haduu u dambaysa qowlkiisa kelmadaasina jannu galay buu nabigu alayhi salatu wasalaam jannadu markaas waa shayga la doonayo qofku adduunyada intuu joogo cibaadada ilaahay aad caabudaysa labada ku caabud tamac ilaahay naxariistiisa rajee oo jannadiisa rajee oo dambidaafkiisa rajee oo maqfiradiisa rajee oo ridwaankiisa rajee cabsooyo dhinaca kalena ilaahay caanadiisa ka cabso oo cadaabkiisa ka cabso oo waxa mar walba soo dhigtaa ilaahay aad u tagaysid waa kariim naxariis badan weeyaan عمل كان مركا أنقبنا مر والبا واحد كوبنين يسلب هذا الشيء معاصي مركا نقطنا نفط واحد لقوا عبسية عذابك إلهي عمل ونكسن أو طاعة مركا نقطنا نفط واحد لهردق الثوابك إلهي عمل كان وكاسين يقف يلا هردق نفط لأن الله هذا أصلا بأدونك يلا معروف يا منكر معروف وواحد وناقة شريعة إنك أمر سنة التي مادد معروف كمركا القبانة سنة جنة لسردقا وحا منكر شريعة أي كان ريبتي مركا النفتي الشيطان كل عي كليهين عرض إلهي عذابك إلهي بالهردقا نفت لأن جنة إلهي مركا ينوب باللنقاضي جنة الله ينقيه دي أمين هذا جنة ودار مقع بدن بقرآن كإلهي كل شيء إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إن للمتقين في جنات النعيم إن للمتقين في مقام أمين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا قرآنك إلهي تبارك وتعالى وعلى
inta naarta uu ka warramay in la eg baa ilaahay jannada kaga warramaa hadday isleekayn aayadaha qur'aanka markii la baadhay aakhirada ka warramaya lafdiga ku yimid ee al-aakhira waxaa la ogaaday inay 115 goor baa ilaahay yidhi al-aakhira adduunyada markay noqotona lafdiga adduunyada aayadaha qur'aanka waxa ku yimid magaceeda 115 jeer marka jannadu waa daar ilaahay tabaaraka wa tacaala bini aadamku waxay ku raaxaysanayeen oo dhan lagu dhammaystiray iyaana galaya ina alabraara la fii naciim dadka adduunka dusheeda ilaahay kaga cabsada ee ilaahay kaga baqa ayaa ilaahay jannada u diyaariyey daar asalaam daarta nabadgelyada daarulkhuldi daarta waaritaanka daar alxayawaan baa ilaahay yidhi daartii nolosha u saaxiibka ahay sideed magac baa qur-aanka lagu sheegay jannadu inay leedahay sideed magac jannatu cadnin jannatu naciim jannatu lkhuld جنات الفردوس وكن نبينا لها عليه الصلاة والسلام إذا سألتموه فاسألوه الفردوس هذا إلهي ويدي سنيسان وضباه أشيغان إسان بنبي قيدي فردوس إلهي ويديستا فإنه أعلى الجنة جنويك أيضا أقص الرئيسة وأوسط الجنة أيضا أنا أقبر تميسان بنبي قيدي وفوقها عرش الرحمن سقفقيق وحا هذا عرشك الرحمن ومنها تتفجر أنهار الجنة وبيالك الجنة مرو دنا أيده كبر قمام رسولك يدي فردوس الأعلى الله ينجيه فردوس تدكي جنة قيمة هيك قرتي وحا كمدها صحابة محمد هويني مدو أيا نبينا أوتي مدو مركا كعبني سحنون كلا إذا قلل كصوحدة صوحتانك ودي عجرتي markaas nabiga u timid alayhi salaatu wasalaam yaa rasuul Allah waan suuxabay ku tir waan dhacaa waa xanuun aad u daran weyn xanuunkaasi Allah inaga badbaadiyo dadku hayaan Allah ka qaado waa xanuun qofku meelsha uu ku dhaco uu san ka warqabin uu miir daboolsamaya gabigiisuba maankiisoo dhan ba tagaya markaas nabigeena u timid ay tiri inni usra wa inni atakashaf fad'u Allah ta'ala li an la atakashafa ya rasuul Allah jidadka ayaan ku dhacaa waan suuxa dadna markaana marada ayaa iga baylahanto waa lay arkaa ilaahay ii weydiibay tiri xanuunka ilaahay inuu iga qaado maraduna ay iga baylahmin markaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu in shiiti sabarti walakal janna haddaad doonto janna ayaan kugu haddaad doonto waad u sabri xanuunkaasoo janna ilaahay kugu siin doonaa innamaa yuwaffa asaabiruuna ajruhum bikayri xisaab dadka adduunyada dusheeda ku sabre ku adkaysta balaayadii masiibada la soo darista thawaabkooga janna ilaahay ka dhigaya أجركوغا بلا حساب إلهي سينيا هذا دونتنا وانكو دعين إلهينا عز وجل إنو كعافية حنون كابان كو بري مرقابيتنا وانسكن نقول إيكادي لأنه ويسون نقطو نبيك أتمدي مرقابو نبيك عليه الصلاة والسلام وحي كتري يا رسول الله وانسكات كيساني إلهي الجنة إيويدي بي كتري بس اسكدا مربا هذه جنة لقو هلايو هلقا كدف لكن مد إلهي إيويدي meeshaan doon hans kaga dhace marada inay iga baylahmin bas iyadoo miyir daboolantay oo maankeygii uu tagay ayay xishoonaysaa ay cawradeeda dhowranaysaa maantana innaka waxa laga yaabaa gabdhaheena qaarkood iyo maaragtaane gabdhahayna la dhashay qaarkood inay gabadhu jidhkeega halka ugu qurux badan ay istiraada ragga tusuha kugu soo eegtaan waana calaamaatu aakhir az-zamaan nabiga sheegay laba qola adduunka iiman buu nabigu yidhi soo socota qola jeeda la wato dadka dariiqyada intay qabtaan ku garaacaya iyo gabdha maaragtaane ismoodaya dhar inay xidhan yihiin wada qaaqaawan buu nabigu yidhi kuwa jannada gali maayaan jannada inay galaan iska daaye carfiga jannadana urini maayaan carfiga jannadana waxaa la uriya udgoonkeyga 500 oo sano marka jannadu ku jirto ayaa udgoonkeygu qofka soo gaadhaa labadaas sinfi buu nabigu leeyahay hadda arki maaye
ورق بدد بي وطان وددك دريقة انت كحيان بي أي لدع عيان أو قردر قفك أو قراع عيان إيا قبل ما ركتان در إني ستان بي سموديان كاسيات عاريات با نبي يدي در إني حريهين بي موديان درنا ما حدنو ويقاويهين با نبي يدي مائلات مميلات جدتك مركي مريان ويسخل قلوعين ايان وحي مالها الرق أكجوغنا ويقلوعين ايان برسولك يدي سداسكو قلوعين سرقنا سلا أوسي ايان والله قلوع سمي والله قلوع سمي والله قلوع سمي إذ لقول ورها إيجن عندها قلابو وزيناها للناظرين أبو يري لا حول ولا قوة إلا بالله جنة قال ما يان بو نبي يقول كواسي عرفك جنة هل ما يان جنة مركي عرفك وحا الله لا شم بقول سنة مركي ميشا لا سعود قفك وجرت قبل المؤمنات يا صحابيات دي مدو ayadoo maankaygi iyo miyirkaygi uu daboolmay ayay ka fikiraysaa inay cawradeedu aysan baylahmin markaa bay nabiga ku tiri xanuunka haddii janno ilaahay igu siinayo iska daa laakiin meeshaan doon han iskaga dhace maradu inay iga baylahmin bas inta ilaahay weydii xishoodku fiicana haweenkana ku si fiicana waa u duceeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam ibn Abbas allah raalli ka noqdee ayaa zamankii dambe taabiciintii dadkii markaa nabiga aanan soo gaadhin ee saxaabada nabiga soo gaadhay buu ku oran jiray ala uriika imra'atan min ahli aljanna haweeney ahli aljanna ama ku tusaa markaa bay oran jireen ha haweeneyda madow ee halka maraysa waa ahli aljanna buu oran jiray ibn Abbas Ataa ibn Abi Rabah buu tilmaamuu ka yidhi Ataayow haweeneyda madow soo markaysid ha waa ahli aljanna weeyaan haweenka jannada galaya aad bay u badnaayeen maalin gabadh baa tiri 10 mubashiriina bil janna baa la sheegay hawa dumarkii jannada galaya hama la sheegay khadiija radiyallahu anha al mu'minin mubashira bil janna kaligi jibriil alayhi salam ayaa samada uga yimiday markaa buu nabigeena u yimid alayhi salatu wassalam wax kala masjido allaha salaamku salaam ka wada ayuuna u sida khadiija al kubra radiyallahu anha al mu'minin buu u sida oo yiri ya muhammad المؤمنين خديجة الله سلام كاسو سلام أيي وحنا اللي يقول وبشارة قصر الجنة كويا لا إلهي ودياريه أنس بن مالك رميصاء أم رميضاء أيضا ومبشرة بالجنة ونبينا عليه الصلاة والسلام أيا كويري سليمي حليتو لجنة أيان قالوا إلهي إتصي أضي هرس عدنا وانكو أركب رسولك كسو يري فاطمة إن محمد عليه الصلاة والسلام وأيضنا ومبشرة جنة والله بشاريي ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام يا يري فاطمة بنت محمد سيدة نساء أهل الجنة إن أنت إذا فاطمة برسولك يري هوينك أمد نبي محمد الجنة قالي دونا وقبض وقود رجس الرسول أكبر وقبض برسولك يري سمية رضي الله عنها يدنا وأهل الجنة وإيدا إنكيدي عمار مركو النبي قد دل يمدي أيكم مقالة مكة دقح ذي يجاق عيق اللقو عذابا يو ومركي دينتو غريب كهيدا مكة عذابا يا مؤمنين إي قريش أي عذابا يسا صحابة رسولك أيو النبي قد كر يمدي سمية وأم عمار إي أذيقي ياسر إي إنكيدي عمار ولا عذابا يو مركا سيدا دين الدهر هكذا يا رسول الله سنتك أوردن أنكم مدبك يا عذاب كابا كجرينا مركا أبو النبي يقول صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة صبر أبو النبي يقول أتكيستا أبا الكينو إنك واجنة ويانا هذي جنة أي مغلان وحلي وحد باتاء الدنيا لسو درستون ويهالمامين يكو way bogtaa haweeneyda madow eeg xanuunkay qabta eeg way dhacaysaa suuxdin bay leedahay laakiin markuu nabigu ku yiri hadaad sabri lahayd janna ilaahay kuugu bedeli lahaa iska daabay ku tiri bas halkiisa ku dhaaf Rabi'ata bin Ka'b al-Aslami radiyallahu anhu khadimkii nabigeena alayhi salatu wassalam ahla sufihi magaalada Madiina
قراني قرابة أن كلها إن كمذا أيوها مساجد كالنبي جينا مؤخردي سدا بأيو دقنا أهل الصفوه وحي هايين رق مال مردن أي أفكوغا أين انهلجن عمتا أي قليان أبا هريرة كمذها markay nabiga ag fadhiyaan baa la yiri hatta awradoodu sidaan u muuqan marada yaraysitaan ee guntiga ee hoosta lagu xidho ayay labada lugood intay qabtaan ba isku xajinayeen baa la yiri iyagoo awradooda nabiga ka qarsanaya dhar la'aan cunto la'aanna nabiga u yeedhay maalin ahla sufaha laba timiru nabigu siisiya laba timira maanta aad ma ku qadayn lahayd ay barwaaqan ku jirnaa inaku barwaaqo nicmad shukriga inagu yar maanta laba timiru nabigu u dhiibay ahla sufiya waraba horeero labadan qabso war rabiico labadan qabso war fulaan labadan qabso aba horeero allah raali ka noqday wuxuu yiri xabadna waan cunay markiiba oo waan gaajoonayay xabadna halka guntiga ayaan ku duubto ku laabay buudi markaa buu nabigu igu yiri lima rafa'ta hadihi ya aba horeera xabadan timirta halkan aad gelinaysa maxay tahay cunde markaasuu hooyadii baan u geenayaa buu ka yiri markaa buu nabigu hooyadaana annaka kuugu dhiibaynay iska cun buu ka yiri aba horeera wanika maanta xadiiskiisa markaad maqashaan aad ku raaxaysanaysaan xadiista aan inta badan aan sheegayno dhan isaga wariyo inta badan laakiin uu sabray uu tabcay diinta tacab buu galiyay diinta uu gaajooday diinta uu huray wuxuu jeclaa inuu magaalada madiina ka xoogsado uu karayay laakiin wuxuu gartay jawaahirta nabi maxamed afkiisa ka soo baxayso ummadda u reebay ilaa qiyaamaha rabiica marka raggaasuu ka mid ahaa rabiicata binu kacb al-aslami radia allaahu canhu wuxuu yidhi isagaa ka sheekaynaya habeenkii markuu nebigu soo kaco calayhi salaatu wasalaam ilaa aqalladu markaas zamankaasi aqallada dhexdooda busqulo lagu xaajoodo iyo tuwaaleed ma lahayn bannaanka magaalada madiina loo bixi jiray magaalada madiinana bahalo iyo boholo badan bay lahayd markaa buu yidhi rabiica nabiga ayaan u soo qaadi jiray buuhi markaa cadaygiisa iyo biyaha weysadaan usii diyaarin jiray buuhi habeenkii madiinat almunawara marka dhulku uu yahay xilliyadana qabowgeega waa cadi maha qabowgeedu markaasaan u keenay nabiga biyihii weysadii iyo cadaygii dadna xaajadiisii buu nabigu soo gutay intaa nabigaan la socdaa buuhi waan way ilaalinayaan nabiga moogtahay sal alla alay wasalam markuu nabigu soo noqday buu arkay rabiica oo aad u dhaxmoonaya oo gaajoonaya markaa buu nabigu ku yidhi rabiica salni maanta waxaad doontay weydiisay buuhi caawa nabi maxamed baa hadalkaa leh ku salliya yaa rabiica salni yaa rabiica waxaad doonta caawa sheego yaa leh hadalkaa محمد عليه الصلاة والسلام والنبي دعاديس مستجابة أي تهي والنبي أود ويا شيء جيد ويا جيد بويا جيد والنبي إلهي أوسيي تأييدات هي معجزات ضميرك هذا الجسوم مغلى يا نبي محمد ضميرك والنبي إلهي أود وحوق لي هدور الله بورت إله والكا كقاد إلهي بورها وكقاد لها مقالة مكبة لي والنبي ربيعو شاقعا واحد دونيس واسكن نقول إيك هذا النبي الله هلقى أبو فريستي نكن ونبي محمد كله يا باهي هذا عاوي إيش وانن مقالة المدينة أقل كمالة جاقا كمالة قرابة كمالة قرين كمالة مالو وحكعنا ما هيستو هدية النبي الله كان أيو نبي أهل الصفان أو وحكسية maalmo dhan baa soo wareega 3 maalmood 4 maalmood 7 maalmood calooshooda cuntay geliyaan ma helaan xabad timira haday helaan bay ku ay abaal ku qabaan ninka baahida ay hayso ayaa nabi maxamed fursad intuu siiyay uu ku leeyahay ya rabiica waxa doonta caawa sheego salli sheega caawa waxa doonaysa markaasuu u yimid oo wuxuu yiri as'aluka murafaqataka fil janna ya rasuulallah wax kale oo sheeganaya ma jirtee inaan jannada kula noqdo rafiiq ilaahay inta ii weydii buu ka yiri meel baa u cadeeyay inaan jannada kula noqdo rafiiq bas kugu arko kula saaxiibo
كل فريستو كل جار نقضو كأركو أنت إلهي ويدي سيد النبي قول جعلاين عجيب إنه هو كجعلاين وبتكو كجعلاين نفتو ذي كجعلاين وكن النبي عمر كلها مركو عمر نبي كويري يا رسول الله dadkayga iyo dadka oo dhan iyo waxa adduunka yaalo oo dhan adaan ka jecelahay naftayda mooyaane markaa buu nabigu yiri Umar wali weeyaan waa wali ila aan naftaada iga jeclaato wali iimaanku qalbigaaga ma fadhiisan ma naftaydana ha naftaadana Umar ku dar wallahi nabi allah naftaydana waa ka jecelahay al'aana ya Umar buu nabigu yiri hadda iimaanku qalbiga ku galay buu rasuulku ku yiri hadduu gaadho iimaankaagu halkii la doonayay nabigay jeclaayeen calayhi salaatu wasalaam markaad wuxuu ka fikirayaa adduunyada maaha waa aakhiro yaa rasuulullah jannada rafiiqan kula noqdo bas markaa buu nabigu mar labaad buu u qabasheeyey wuxuu ku yidhi aw ghayra daalika taatu aan ahayn oo kalena sheego haddana markaa buu huwa daaka muraad kale anu ma lihiye muraadkaygu waaba intaasuu yidhi markaa buu nabigu ku yidhi faacinnii calaa nafsika bikahrati الsujuud وهجاج الربيع أذكر واحد يقول سوء عاوسا سجود صوبت سبو نبي كيدي نبي قال جنة إيه بشاريي حكوك جابين عبادة إلهي بل سو زيادة عبادة طاعة الزيادة صلاة الزيادة خير كالزيادة ودواشها إلهي عدو دوانا يسو سي زيادة أنا كان مياه تا أدي إيويدي ستي وكد دالا يا إن هذه هلي دونتي أذكر السجود يقول سوء عاوي بنبي كيدي أياكو جنة يفهمين جنة ودار نوعية ودار إلهي بعد ساعة تبارك وتعالى بقى هذا لقد سيب النبي السفيا وحجري لبنة من ذهب ولبنة من فضة لبدا بقى جنة اللي زدول قال لقد سي من الذهب وكسم يسني هاي النبي يقولي من العقب وكسم يسني أهل الجنة جنة دحدة دبو نبي قولي ويعنيان ويعبيان وقت يعنيان حد مله وقت يعبيان حد مله ويعنيان ويعبيان مسحرونيان كذي يلن مايان قندوف يسين يخاخة منا يلن مايان بو نبي قولي عنت هذا ما أنت أدوية وقوم معان هداد عنتو ساعة كدب القيد جيني ساعة بيت المي قد جيني أقل كادوية وقو قروح بدن بلا بيت المي ما دعي كراينو نقضو ولما أقل كسي قروح بدن يهي سي عصري الله ديسو أيا تواليت كسنة سي عصري الله ديسو إيمك عربتنا التواليت كو حيبا أتقانابا بيت الراحة أقل كالراحة دي ويقانابا تدعوني وين يكون رافتا عنا دا أدوية لكن جنة دحديد وعجيب عنتدا جنة أبو نبي يقولي ولا عني ولا عبي لا يتغوضون ولا يمتخطون ولا يبولون ولا يدفلون بالنبي يقولي عنتدا جنة ولا عنيا ولا عبي يا شراب كيغا ما هالساعة وحل عنيو بقلال سنو كما يالسنا العني دونا عندا العني أبو نبي يقولي هاي سحرا نقوني ميسو كادن نقوني ميسو دوفي الصيني قندوفي خاختنا نقوني ميسو وهذا ما حي نقوني سا عندي waxay noqonaysaa buu nabigu yiri uu daacaya qofku daacada adduunka marka daacdo islaanta hada dhan baa ku oranaysa war daacadaada qarmuunkeyga xagga noogala jeeso soo ma oran karto armaanti maxaad soo cuntay xabaa ka oraya xagga uka ya allah daacada jannada buu nabigu yiri waa misk udgoon la ursado cadarka ugu udgoon ee jannada dhex yaala أي علوشي سكسو بحث قفك مومكا بيه شرابك وعبا يمين إلا جنة وحال الشيء وبيال لنين دردوريان وبعانا وبملبا وبخمريا وببياء انت أبا هوس هذا مرايا مركاسا العبيسا هداد ما انت عبتد مركابا بيت الميقا يا ضبا هانو كاذبا كو قبانيسا هبين قينا لبسا دحجارب وقفكو كعيا حلق ودولكو قبويا أهل الجنة مياه مي كاذي يلن ما يابو رسولكو يري oo sharaabkii cabeen muxuu isku bedelayaa waxa uu noqonayaa buu nabigu dhidid buu noqonayaa dhidid cunadiina daacay noqotay udgoon
sharaabkiina wuxuu noqonayaa dhidid buu noqonayaa dhididka adduunka waa qarmuuna waa la iska maydhaa dharka aad ku dhididayna waad iska bedeli laakiin jannada dhexdeeda dharkana la bedeli maayo wajigana la maydhi maayo ahlul jannati juradun murad kuxla laa yafnaa shabaabuhum walaa tablaa hiyaabuhum baa nebigu yidhi ahluljannati juradun murad ahluljannuhu gadh yeelan maayaan timo dhogorana yeelan maayaan xaggan walaa meel kale timo badanna yeelani maayaan gadhna yeelan maayaan buu nebigu yidhi kaxlaa indhahoogana waxaad mooddaa indha kuxulin loo mariyaad mooddaa bal wayba ku samaysan tahayba laa yafnaa shabaabuhum dhallinyarnimadoodu ma gabowda buu nebigu yidhi 33 jir wa fii riwaayatin 30 jir baa lagu joojinayaa ama 33 jir intaa ka yaraani maayaan mana dhaafayaan laa yafnaa shabaabuhum walaa tablaa hiyaabuhum dharkay xidhaana ma baaliyooba buu rasuulku yidhi jannada dhexdeeda suuq baa ku yaalla suuqa aljumuca la yidhaah suuqaaba ahluljannuhu iskugu imanayaan buu rasuulku yidhi fatahubbu calayhim riixun min ashimaal dabayl ayaa xaggaa kaga iman doonta dhinaca bidix dabayshaasaa wejigoogii ku dhifanaysa suuraddoodii bay beddilaysaa buu nebigu yidhi kalarka dharkana way beddilaysaa iyagoo kalarkay xaafadda kaga tegeen dharkoogu kalarkii maaha wejigoogu kalarkii maaha ayay ku soo noqonayaan dumarkoogiiyo xawraadoodii xuralcayntii baa odhan doonta war markaad suuqa nooga baxdeen nagu soo noqoteen dharkiinni waa isbedelay kalarkiinni waa isa soo bedelay waa ini sidee markaaba iyakuuna odhanayaan wallaahi annakana intaan niga maqnayn waa layni sii bedelay ininkana suuqa adduunyada markaan tagno maxaan kala soo noqonaa qurux mise foolxumo boosboos baad kala soo noqon iyo cawlaan iyo siigo iyo dhafoorkaaga dhaf baa ka muuqanaya markiiba suuqa jannada ku yaallana qurux baad la soo noqon qurux dharkaagu baaliyoobi maayo dhallinyarnimadaadu gaboobi mayso mitir iyo badhna la ekaani maysida waxaad noqonaysaa dhararkii nebi aadam calayhi salaam 60 diraacan fi samaa wa 30 mitir baa lagu qiyaasaa ma gaboobaysid ma dhimanaysid ma bukoonaysid ma baahanaysid baytalmay geli maysid ma seexanaysid daraariya habeen waad iska ciyaariyo tuman insha allah dhahada qulu insha allah haweenka jannada nabigeennaa ka sheekeeyey calayhi salaatu wassalaam nisaa aljanna haweenka jannada muuminka loogu diyaariyey buu rasuulku yidhi mid ka mida iyaka haweenka jannada muuminka loogu diyaariyey mid ka mida buu nebigu yidhi hadday adduunyada u soo bixi lahayd oo adduunka loo soo saari lahaa udgoonka jidhkayga ka soo baxaya buu nebigu yidhi ayaa samada iyo cirka isqabsan lahaa buu rasuulku yidhi gabadha muuminadda ee jannada galaysa muuminka jannada loogu diyaariyey hadday adduunyada u soo bixi lahayd oy dhoolla caddayn lahaydna iftiinka iligeyga ka soo baxa ayaa cadcadda iftiinkayga shiiqin lahaa buu rasuulku yidhi xawralcaynta ka mid ah faryaradeedaa yar buu nebigu yidhi hadday adduunyada u soo saari lahayd ragga adduunka ku nooloo dhan baa fitnoobi lahaayoo biyuhu ka iman lahaayeen buu rasuulku yidhi marada yare madaxa ku sidato waa masarka yar madaxa ku sidato ayaa adduunyadoo dhan waxaa dulyaaloo dhan ka khayr badan buu rasuulku yidhi muuminku jannada markuu galana muraayad u baahani maaye xawralcaynta dhuunteeduu isku daawanayaa markaasuu isku eegayaa wejigeeguu akhrisanayaa waxaa ku qoran naxnu raadiyaatu falaa naskhad annaku waxaa nahay kuwa ninkooga raalli ka ah oo weligood aanan cadhoonayn wa naxnu alkhaalidaatu falaa namuut annaku waxaa nahay kuwii weligood jannada ku waaryaayey ee dhimasho aan u saaxiib noqonayn wa naxnu naacimaatu falaa nab'as annaku waxaa nahay kuwii alla u nicmeeyey balaayo iyo buus iyo dhibaato aanan arkayn tuubaa liman kaana lanaa wa kunnaa lahu ka noo ahaada nin een annakuna xaasu noqonnaa liibaane bay leeyihiin ibnu cabbaas allaha raalli ka noqday isaga iyo aabbihiibe muuminka banka qiyaame kitaabkiisa gacanta midig marka laga siiyo
واتن آيات القرآن كإلهي كشيغي وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا ehelkaagu kuwan adduunka aad ku haysato maaha ehelkan adduunyada aad ku haysato ibtilaa baa lagu siiyey ikhtibaar waa lagugu eegayaa inay ilaahay taacadiisa ku seejiyaan iyo inaad taacadda ilaahay aad ku fulisid baa lagugu eegayaa laakiin ehelkaaga runtu waxa weeyaan waa ka maalinka qiyaamaha muuminka gacanta midig kitaabka marka laga siiyo ee xisaab yar oo fudud la xisaabiyo markaabuu u gadoomayaa baa ilaahay yidhi ehelkiisii oo sugaya ayuu xaggooga u noqonayaa buu ilaahay yidhi albaabka jannaday joogaan ay ku sugayaan baa la yidhi albaabkay ku sugayaan kitaabkiisii buu gacanta midig ka qaatay xisaab fudud baa la fudaydiyey xisaab fudud waa maxay lama baadhbaadhin buuggiisii lama baadhba haddii la baadhbaadho waa khatar ilaahay baa asturay oo naxariistiisii buu hubiyey addoon baa lala soo keliyoobi doonaa banka qiyaama buu nebigu yidhi oo la odhan doonaa adiga rabbi baa kuu yeedhaye soo kac markaasaa ilaahay caza wajalla sitrigiisaa ilaahay huwini doonaa markaasuu ilaahay addoonka uu la hadlayaa hadalka addoonkiiyo rabbigiisa dhex maraya makhluuqu maqli maayaan malaa'igtu maqli maayaan muqarrabiintu maqli maayaan waa laga qarinayaa waxau ilaahay qirsiin doonaa dunuubtii adduunka dusheeda addoonkan uu ku qarsanayay baa ilaahay u sheegi doonaa markaasuu ilaahay odhan doonaa addoonkaygiyow dembigii caynkaas iyo caynkaa ahaa ee maalin heblaayo halkaa aad ku samaysay ma xasuusan tahay markaasuu leeyahay haa markaabuu ilaahay odhan doonaa adduunka dusheedina waan ku asturay maantana waa kuu dembi dhaafay kitaabkiisaa gacanta midig laga siinayaa deedna xaggaayo jannadu u ordaya markaas allah inaga dhigo kuwaas mihdaan dembi lahayn muu inagu jiraa may macsuumiin ma nihin dembi uu naga dhacayaa laakiin naxariista ilaahay baa ballaadhan ilaahay naxariistiisaan rajaynaynaa mar walba ka quusan mayno dadkana ka quudin mayno naxariista ilaahay dadkana ka quusin mayno muuminka markaa kitaabkan la siiyo ehelkiisii buu ku noqonayaa ibnu cabbaas radia allaahu canhuma ayaa yidhi mid kasta oo kitaabka gacanta midig laga siiyey xawraadiisii baa iridda u taagan oo sugaysa markaabuu daymoonayaa daymashada oo keliya ayaa qaadanaysaa la yidhi 70 sannadood mise sano arooska habeenka ugu horreysay xaaskaaga lagu soo hooyo 20 daqiiqo saa ma u eegi kartaa waar maxaad naga eegi bay ku odhan indhahay faraa kaa gelin maxaa nahay yani maba haleelaysid ba adduunka dusheeda 20 daqiiqo qurux intaa la egoo la eega dadka adduunka jooga ilaahay maba siinba fa maxaad u malayn gabadha 70 sano aad daawanaysid quruxdeeda iyo jamaalkeyga ibnu cabbaas wuxuu yidhi laakiin ayaa daawan doona ma taqaanaa waa ka adduunka intuu joogo maxaarimta indhihiisa ka laabta kaasaa xuurlacaynta daawashadeeda ku raaxaysan doona waqul lilmuuminiina yaquduu min absaarihim udaymoon saasuu u daymoon muuminku 70 sannadood tucaaniquhu wa yucaaniquha ku boodi marka iyadna way ku soo boodi mucaanaqada waa qoraqoraynta mucaanaqadoo keliya buuhi ibnu cabbaas haddana 70 sano kale haddana haysan buu yidhi sidaa unu haysan markuu jannadii arka naciimteedii 4 shay oo adduunyada inta la joogay qofka bini aadamka nolosha ku qaraaraynaysay ayaa ahlal jannaha maskaxdooda ku soo dhici doona waa 4 waa geeridii waa gabowgii waa baahidii waa bugtaantii 4 baa maskaxdooda ku soo dhici doonta ma naciimka intan leeg ayaa ilaahayna siiyey markaasay 4 xasuusanayaan baa la yidhi xagga saraa laga dhawaaqi oo la odhan doonaa yaa ahlaljanna inna lakum an taxyow falaa tamuutuu abada yaa ahlaljanna maanta laga bilaabaa jannadan waxaad ku dhex leedihiin nolol daa'ima dhimasho dambe arki maysaan nicmad joogto ah oo nuqsaan dambe aanan lahayn dhallinyarnimo gabow dambe aan lahayn caafimaad qab xanuun dambe aanan lahayn allah ina siiyo jannadaasaa ilaahay inoogu
باقى يا مالين والبا ولقولي هي صلاة مركا تكنيسو مؤذن كولي حي على الصلاة حي على الفلاح جنة إسهركن جنة كو حسابتم بشير رمضان باسوق شيء جنة إسهركن صدقات بابيحي لقالي هي جنة إسهركن قرآن بالقولي كالي آخري جنة إسهركن آخرة وحبحي بالقولي هي جنة إسهركن مركب النبي عليه الصلاة والسلام مجلس كيسي سوق معلم فرديا أي نمكي مهاجرين مكة كسو هجرودي أي سركعوا النبي كوير هذين نبي الله مقالة مكة أنكو أنك إيمانين كسو بحني ما زمزم بانكو هايسنو إيما هين هل كان بيه وإيم مقالة مدينة عيلشنا نمن يهودا انت بدن اسكا هايستا لعقان كو يبسننا ما هايسنو marka ninkii ceelka bi'r ruuma laha ayuu nabigu u tago wuxuu ku yiri asxaabtayda muhaajiriintayda biyaha u fasaxa ka cabaane markaas uu fasaxi maayo oo anu ceelka yar baan leehayo biyaha yar baan iibiyayo reerkayga ayaan ku biiliyaa marka uu nabigu ku yiri bi'nihi bi'ayn fil janna il jannada ku taala ceelkaaga ku bedelo ku iibso markaas uu may ceelkayga yar iska iibin maayo iska kaydaab uu ka yiri عثمان بن عفان رضي الله عنه وذكيها وعقل بدنا وإنشي سميل در وحكا أركايي وبصير إلهي أوسيي أي هذا النبي قلبي قيسا كل بعي بعنيه بعين الجنة الجنة كتا لعيلك إيقا إيبسو مرقابو نيكي اسكدي ذا نيكي عيلك لها عثمان بان نيكي وتقو يري عيلك آقا هدين لغاير هذا العكو إيبي ما إيبين لهاي هاوان إيبين لها واي قرقر تمين مركا وحي كوهشيين صدن كن أو درهم عثمان لعقتي بسوق هذا أودجي عيالك فريه سيقول صور رجب كيل وكسوقات رسولك عليه الصلاة والسلام بوك نوح كيري يا رسول الله عيالك بئر روما هدي أن كانوا إيش جنة كنت على إنك الله بلغ هذا إسكدي دي أنا كما لي بلغ هذا يا مركب النبي يقول ها مركب عيالك فريه سواكا أصحاب هذا ووقفوا يا هذا صدام بقول عيالك هذا تلبيسه ووقف هل استعمال أبو رسول الله يدي marka uu nabigu farxay indhaha ayuu nabigu marka kor u qaado wuxuu yiri Usmaan ilaahu raalli baan ka noqday raalli ka noqo Usmaan maanta laga bilaabo amal dambe haduuna sameeynba inta uu jannada ku galay buu rasuulku yiri bi'nihi bi'ayn al-jannah indar garata dadkaas ahaa Soomaaliya ya misas siyaasi salaadna aan tukanayn baa lagu oran indhar garata weeyaanoo kontonka sano soo socda isbedelka geeska Afrika ka faalooday dhageysta idaacad inta la soo fadhiisiyo ya Allah aqliga aakhirada ku tusini waaya aqli ma nolosha dambe aqliga ku jeedin waaya aqli maaha aragu haddaad aakhirada ku arki weydo ku xisaabtami weydo arag sax ma جنة هدي مغلان أصحاب رسولك وهي هيان هلكا بس كدقيين جنة مركا جنة داسان سور دقينا مركا صوم إنه صلاة إنه صدقة بحنا إنه زكاة بحنا إنه والد كوسا مفلا إنه جنة نبى النبي قوي مدوي الجهاد بان ربا وين الجهاد بحدا تمدها جنة دون إسها جنة دون يا نبي الله وحكى لما دون يو لما دادي والد من نول يهين ما هو يا نول ما يدو كار راليات مدي مسيدو سفر كاغا عن رالي كاهين ما يدو اويسان كايمدي مرقابو نبي يقول سو جنة وما سعوتد ها هو يدا كن نقول لوقتيدا قبسو halka baad jannada ka gali doontaa adigu yahay الزم رجليها ثم الجنة ونبي ثم الجنة لقت هذا قبصو جنة هالك بعد كجلية طاعبنا إلهي مركز قدنا يسوى واحد سرق يسوى جنة معصي مركز نفتي الشيطان كوكوي يران أي شيطان كي نفته أي كويرادان إلهي عاص ودم بيج السماء وواحد كل عمرك نفتي الشيطان كوكويرادين وين هذا سرق تا إلهي عرضي سرق إن بطش ربك لشديد إن ربك لبالمرصاد إلهي كو حسابتن عرديس كعبسي نفت هذا مركز الله بدا سال دنيا إلهي نكو عبدنا طمعا خوفا وطمعا عبسي هي الرجو عبسي ده غور مال الربا وانت العافمات كهيسد
eed nolosha haysid eed dhallinyarada aad tahay eed amniga haysatid ilaahay cabsi ku caabud maalintaad eer xanuunsatidna ama xaalad adag ay kugu timaado ilaahay raxmadiisa raje markaas oo haquusan oo waxaad tidhaahdaa naftaada waxaad ku tidhaahdaa rabbigay waa naxariis badane waa deeqsi badane waa kariim weeyaan ilaahay waa kariim kaad la shaqaynayso waa kariim sidii ninkii xajka u socday mar alle markuu ixraamkii u xidhay ayuu maqlay ayuu yidhi labayk allaahuma labayk markaa dushiisaa laga leeyahay laa labayka walaa sacdayk xajka aad u socoto lagaama aqbalin safarkaa aad u xamaan qaadatayna ilaahay kaa aqbali maayo iska joog hadal baa dusha kale dhawaaq mid isaga gadaashiisa joogaa hadalkii la maqashiiyey kii baa ku yidhi yaa sheekh waxaad ka xajin adigu labayk allaahuma labayk markaad tidhaahdaba jawaabta maad maqlayn markaa maad maqashay haa waan maqlay ma haddaad maqashay haa haddaan maqlay wuxuu idhi 27 sano ayaan ilaahay gurigiisa u soo qasday mar ali markaan xajka aanu ixraamka soo xidho ee talbiyadda soo bilaababa laa labayka walaa sacdayk baa layleeyahay oo waxaa dushayda laga leeyahay xajkaaga cimradaada sacyigaaga cibaadada aad u socoto ilaahay kaa aqbali maayo baa layleeyahay ee iska joog baa layleeyahe haddaan gurigiisa ka joogo oo socodka aan xaggiisa u dhaqaaqay aan ka joogo xaggee kalo oon tagaa bal ii sheeg buuhi adaan tala kaa qaadana bal ii sheeg buu ka yidhi may jirtaa meel kale wuxuu yidhi ama ha lay aqbalo ama yaan lay aqbalin anu ilaahay baan u socdaa xaggiisa buuhi meel kale uma socdo ka quusan maayo ilaahay raxmaddiisa waa kariim waa raxiim waa raxmaan waa xaliim waa sataar ceebteedno dhan buu qarinaya maanta dulqaad badane war ma cadaaladda ilaahay baan ku joogna adduunyada baa la yidhi satriga iyo dulqaadka ilaahay baan ku joognaa satr asturkiisa ilaahay baan na asturaya ilaahay baa noo dulqaadanaya laakiin haddii cadaalad la eegi lahaa acmaasha jidhkeenna maanta ka soo fulaysa iyo cisyaanka aan ilaahay caasinayno iyo sida macaasida waddooyinkeenna maqaaxiyaheenna guryaheenna ilaahay loogu caasinayo daqiiqad adduunka inaan ku noolaan xaq uma yeelaneen maanta 27 sanaan maqlayaa buu yidhi oo laygu jawaabayaa oo layleeyahay ilaahay xajkaaga kaa aqbali maayo iska joog dee maan joogaa ka joogi maayo waan socdaa buuhi waryaa u yimiday dawaafkii buu bilaabay sacyigii markuu dhammeeyey ayaa dushiisa laga dhawaaqoo la yidhi labayka waa sacdayk waan ku aqbalnay waan kaa ajiibnay 27kii hore ee xajidayna ilaahay waa kaa aqbalay baa lagu yidhi kii baa la maqashiiyey marka hore maqlaayey markaa buu yidhi sheekh waa lagu aqbalay wuxuu yidhi albaabkiisa maahayna albaab kaloo garaacaynaa ma jirta buu ka yidhi ma quusanayna annagu ilaahay baan haysanaa marka ilaahay raxmaddiisa ka quusan mayno dadkana ka quusin mayno bal ummadda waan tarqiibinaynaa waan u naxariisanaynaa dacwadda ayaan ugu yeedhaynaa dacwadda markaan ummadda ugu yeedhaynana waan u dhibrinaynaa bucithtum muyasiriina walam tubcathuu mucasiriin xadiidkaas siduu ku yimiday nin acraabiya ayaa masaajidka nebiga dhexdiisa cawradiisii intuu la soo baxay ayuu masjidka nebiga dhexdiisa ku kaadiyey saxaabadu markaasay ku yaaceen markaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam waar ka joogsada markaa buu nebigu saxaabadii ka joojiyey markaa buu nebigu ku yidhi waar ka joogsada kaadida ha ku goynine ka joogsada halkuu ku kaadiyeyna biyo ka badan ku shuba buu yidhi isagii buu nebigu markaa u yeedhay kaalay adigu markaasuu nebigu fadhiiso ka yidhi uu fadhiisiyey masaajidkan ilaahay baa leh waa meel ilaahay lagu caabudo salaadaa lagu tukadaa qur-aankaa lagu akhristaa tasbiix iyo taxmiid iyo takbiir baa loogu talagalee ee maaragtaane wax kale masjidka looguma talagelin isagii baa ka sheekeeyey oo yidhi wallaahi ima dhibsan oo ima dilin oo ima aflagaadayn macallin isaga lamida hore uma arkin dib dambana u arki maayo wuhi macallin isaga lamid ah ilaahow aniga iyo moxamed noo naxariiso cid kale ha noola naxariisan buu ka yidhi
صحابتي سيبوا النبي كويد هلكو كوكادي بيك بدن كشبا إنما بعثتم ميسرين بعثتم وحادونك ليني كاني وليني سو ساري إن عدتك حق أرد برسانة إن هذا مدى حق كؤت كيسان دونك ليني مكاني برسولك يري بعثة ولقد بعثنا في كل قرية نذيرا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بعثة كلمة البعثة قرآن يقول الله والفاظ إلهي سجارة مركو وتلمام النبي يدا إريد النبي يدا ما لو أدك سجري اجتبى اصطفى بعثة وكلمات النبي يدا خاص كوها لكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام صحابتي سيبوا كليهي إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معصرين إن كلمة هنا أدونك اللي مسو صارين هدين اللي سو صارينا رب العزة وحو ني سو صاري إن هذا مدى حق أرد برسان اللي نيمة سو سارين إن هذا مدى مرقد حق أقود بين إنسان أتكو أتكيسان ربعي بن عامر صحابي جليل كاها رستم مركو أتقينا وكي كوير رستم الله ابتعثنا إليكم أنك إلهي بنوكي سو صاري بوكيدي ورقفك مسلم كا ولا ليال مسلم وين أتفهمت إلهي باكو سو صاري إلهي باكو دورتي ومع إلهي كو دورتي دينتا إسلامكا إناد كو دغانتو ood barato ood ka shaqayso oo diin ku noolaato oo diin ku dhimato ayaa adduunyada lagu keenay hadafkaaguna uu noqdo inaad janno hesho ansaar markuu nabigu la mubaayicoonayay ansaar waxa uu nabigu ansaar ay ku wada ballameen bay'at al-aqaba markay dhacaysay yaa rasuul allah anaku aan ku qaadanaynaa bay ku yiraahdeen madiinada al-munawwara waan kula tagaynaa sida naftayada cadowgaan uga difaacno een ilmahayaga cadowga aan uga difaacno ee reerahayaga cadowga aan uga difaacno ayaan adigana cadowga kaaga difaacaynaa waxaanan ognahay haddaan magaalada madiina kula tagno caalamkoo dhan dadka ku nool ayaa dagaal nagu soo qaadi doona difaacaaga inaan ku dhammaanana diyaar baan u nahay dhaqaalahayagayna inaan adiga kugu bixinno diyaar baan u nahay ma laga yaabaa nebi allow maalinta ilaahay diintaada uu muujiyo ee guushaadii ay daahirto ma laga yaabaa inaad naga soo noqoto oo maka ku soo noqoto markaa buu nebigu yidhi ha ka yaabina buu yidhi halkaad ku noolaataanna waa ku noolaan buu nebigu yidhi halkaad ku dhimataanna waa ku dhiman halka dhiiggiinnu ku daatana waa ku daadan dhiigaygu rasuulku yidhi waa bayca erayadii ansaar iyo nebiga dhex maray siraday ku taallaa الدم الهدم baa nebigu yidhi halka dhiiggiinnu uu ku daatuu dhiigayguna ku daadan halka qabuurihiinnu ay noqdaan buu qabrigayga noqon buu rasuulku yidhi inaan maka ku soo noqdaa oon tolkayniga soo raacaa ha soo dhiganina buu yidhi ansaaray waa ballan haddaad aniga maanta i qaadataan oo sida naftiinna iyo ubadkiinna iyo dumarkiinna cadowga aad uga difaacaysaan haddaad cadowga iiga difaacdaan anna waxaan nii ballan qaadayaa halkaad ku noolaataanna waan ku noolaan halka laynagu aasana waa laygu aasi halka dhiiggiinnu ku daatana dhiigaygu waa ku daadan waana ballan buu nebigu yidhi wallaahi buu nebigu yidhi waxaan nii sheegayaa dadka adduunyada ku nool hadday dhinacay maraan ansaarna xagga ay marto oo la yidhaahda kala dooro halka ansaari ay martaan mari buu rasuulku yidhi waxay yidhahdeen waa hagaag laakiin maxaad noo ballan qaaday oo kale noo sheeg waad guulaysanaysaa ilaahay baa guusha ku siin doona anaguna difaacaaga inaan ku dhammaano diyaar baan u nahe maxaad noo ballan qaadaysaa noo sheeg wuxuu uhi janna nii ballan qaadi janno maxaa ka weyn bal sheega ma odhan madax baan niga dhigayaa dhaqaalaan ini siinayaa talada dabaday ininkaa nii dhiibayaa ma odhan waxa uu nebigu yidhi waxaas waa adduunyo ka kaalay waxa uu nebigu ugu ballan qaaday inay janno wada heli doonaan ficlan nebigu ansaar wuu u duceeyey sal alla alay wasalam gargaarka ay nebiga u gargaareen ee ilaahay rasuulkiisa u hiiliyeen ee diinta u gargaareen ayaa loogu magac daray al-ansaar kuwii ilaahay nebiga u gargaaray baa loogu magac daray marka innakuna inaan diinteenna u gargaarnaa laynaga rabaa maanta oo aanan odhan xilka diinta culammada unbaa ka mas-uula macallimiinta unbaa ka mas-uula jamaacaddo khaasa unbaa ka mas-uula may qof kastoo muslim waa shahaadanaya diinta xil baa ka saaran inaad adiguna diintan islaamka aad ku dhaqantaa ood barataa
وواجب كسارنو إلهي باكوغو أدون صدي إن الدين تشقد إذا أتكقيب قادتا أو مالكاغا وقتكاغا دقالهاغا عقلكاغا علمكاغا وحي إلهي صلاحيتكو قليي إن الدين الإسلام قادو حكقشتا يدنا قيامها واللقوي دين دونا يوغو فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين بإلهي إنه لذكر لك وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون فإن شاء الله هذا إن الدين تكشغين وذن اليود إن شاء الله سيفي عنه هذا ده هذا نقول عليه ده شغال الدين دو وناكسن مثل دقيست الدين دو وناكسن متكدون السين طيب دقيست الدين دو وناكسن وفي عين هيدا كتاجي منه سوما اللي هذا وحن مغلين ما فهميس بركة هدي لنا قد البدين تينا مال يا وقت كوب حننا وكوب حننا وإذا استنفرتم فانفروا نبي قلنا أمري هدي لنا قد الباب ونبي يقول الدين تينا ضب حدان بحبوا رسولك يقول صحابة وين بحن دعوة بيقوا بحن تعليم بيقوا بحن جهاد بيقوا بحن رسائل بيقوا بحن رسائل مدحدي ورقد اوغيين مدحدي ادونك ugu xoog weynay madaxda zamankaas waxay hayeen qaar kood madaxan loo gali kareynin illa sujuud lagu gala mooyaane umay sujuudin asxaabta nabi maxamed bal warqada gacanta ka saareen risaaladii nabigu soo qoray gacanta uga saareen qaar kood nabigu dacwad buu nabigu u diray in umada salaada loogu yeero توحيدك إنه ما ضل قرسيه ده إن شاء الله فراغ مركان هيسنو مددا أفرت بلاد يا لوضع بلاد يا أفرت كعشية بيش فصحات هاي ووسائل الدعوة سيدا ما التعليم تبقى وسائل ولا ده هاي وسائل التعليم ومحي ومدارسته منهج كمدارس ووسائل ويان منهج كان علمي قال له قد قنا يا متون علم المتون يا علم المطولات مركز بلغ لي ووسائل العلم وسائل الدعوة إمك آلات كان إمك نقضوا بيسان ووسائل الدعوة وأنا أقول لها ما ديدنين لكن جماعة عيني بحضو أو قرية جماعة كب بحضو أو قرية دتك أي برارجيان أو مقايد دتك أي وتجان أو دتك صلاة الله ويره أو تاريخ صلاة قعدت الله سوقبته ووسائل الدعوة بل تاسع أصل كي ولي بدأ نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام آلات كان ما أنت إنك وأنا سنين دعوة أو كاشنا إنه هذه آلات كان دعوة كف ديسو نبي محمد بالسين لها لكن نظام النبي محمد إلهي أوصيي والنظام كأقول نتيجة إن مركب الدين في عالم كلنا قاعد وأنا نظام كي والنظام كوقف إنه الدالة إنه ها إن أدو قداشي أديك نقالة كابحو مال كابحو وقت كابحو ديك كابحو دعان كابحو نقالة كابحو ودسكت هر واحد جعش هاي مركز الدين تقيمه هيجنا أتقرن dadka kalena diinta aad qiimahooga u sheegi kari hal qisaan nigu soo gaabin ninba oday inankiisu damcay inuu jarrabo imtixaan uu ka qaado wuxuu yidhi aabbo dee 20 jir baa tahay 20 sano waxaanaad cunaysaan ilaahay anigu iisoo dhiibo biilkayni siinaye maanta waxba ma hayo reerkii bahdii yareed waxba ma hayaane bal wax yar ii keen buu ka yidhi maanta orada ii soo xoogso wax ii keen كاير وإنه هو ولقي شقة ما أركن الدنيا كما شقين هو يدي بوتوجو هو يلا عقبان رباية يسيبوا إيه مثلا $10 وهو معان ويسوس هرتوا يسيسي أبيه بوي مدوير صوت شقة يبوس كدقي أبا واكن $10 هو ينسوا دعاء وكقاضي وذاك مركا جرجرة دبا هرتي صدب كبحية بل مركز وقاضو وسقوا أركيب وكوري ده $10 بل كي رابو ياغو وح اسبدل يركي راكم ايمن هذانا مالين دنبو يري بل ما انت انا ابوان كسوغيا دي دعاء قباته ويدي بو تغو او بل wax yarsiyo maxay $5 uu keeno ابواد ما شاء الله فريد واي سقو arkay dabkii hadana ku tuuray hadana maalin saddexaad islaantii baa tiri war lacagta bariyahan adiga gurtaalkeed geysaa wuxuu aabba igu yiri bal ii shaqo tago waxii keeno de hooyo waxa shaqo ma garanay adiga ma ka qaada
markaabeta dee muxuu ka dhigaa odaygu lacagta wallaahi dee in wax ku falayaaban moodaye gargaro hortiisoo dab ka baxyo buu ku tuuraa buu markaabee tiri war lacag la gubo anigu ma hayee orad aabbaha u shaqo togahay wareerina iga teg waryaa almuhim qola xaabo goreys u raacay xaabada see loo soo guraa matacbaa mise raaxo wuu soo guray uu keenay lacagtii buu soo helay uu keenay lacagtii buu u fiiqay baa la yidho aabbo markaabuu dhinacana uu ka hayaa lacagta moogtahay odaygana uu eegay war maxaa jiray buu yihi maanto aabba lacagtii hore da way ka duwan tahay maanta buu yihi oo kolkaana dee dabka ka daaday aabbo oo maxaan uga daayaa tii horeba sawniin ku gurayey ma tii hore hooyaan ka soo qaadaya tan laakiin maanta anaa soo shaqaystay dee baad fahamteen baan u malayn diin shayga qiimihiisa waxaad garan markuu dhiig iyo dheecaan iyo wakti uu kaa galo haddaad waxba gelin ma garanaysid qiimihiisa marka diinteenna macaan ilaahayna siiyey inaan shaqadeeda tababarkeega u baxno oon habeenka jimcahana markaska imanno oo masaajideennan maasha allah dhalinyar badan oo khayr badan baa ka dadaalaysa iyo macallimiin iyo culimo badane inaan dadaalkaa diineed ininkuna qaybteenna ka qaadano wada niyooda insha allah dembigeenna allaha dhaaf dembiga waalidiinteenna allaha dhaaf diinta allah inoo macaaneeyo khaatimadana allah inoo hagaajiyo muslimiintana meelay joogaan kurbadii ciriiriga allaha ka qaado muwaafaqiin midnimana allaha siiyo dalkeennan aan joognana nabadgelyada allah inoo adkeeyo dhallinyarada wiilal iyo gabdhaba alla inoo hadeeyo dowladdeennana dowlad diinta iyo dalka iyo dadka wixii u dana garata allaha ka yeelo allaha garansiiyo dad badan oo walaalaheen oo xanuunsan baa ducadoona iyakana caafimaad sariica allaha siiyo idinkana khaatimada allah inuu hagaajiyo sala allahu calaa sayidina maxamed